wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay. Fadlan like saar muuqaalka. Waxaan ku hormari doonaa warbixinta gaar ahaaneed ee xiisaha badan kuna saabsan Turkiga iyo NATO. Muxuu madaxweyne Erdogan ka doonayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden? Markii Turkiga uu ka doonayo Washington in lagu soo dhaweeyo ku biirista wadamada gaashaanbuurta NATO bishii February sanadkii 1952, qofna ma aysan filaynin in Ankara ay noqon doonto furaha isla egta ugu adag taariikhda isbahaysiga gaashaanbuurta NATO tani markii la aasaasay sanadkii 1949. Inkastoo Ankara ay qayb ka ahayd xiisadii gantaalada ee Washington iyo Moscow sanadkii 1962, markii Moscow ay doonaysay inay Kuuba ku rakibto gantaalada nuclearka si ay kaga jawaabto go'aankii Washington ee gantaalada nuclearka ee Turkiga iyo Talyaaniga, qof kasta waxa uu xasuustaa sidii Turkiga 6,000 oo askari ugu diray Kuuriya si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada Mareykanka si uu cadeeyo daacadnimadiisa iyo sidoo uu doonayo ku biirista isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. taariikhdaasi kadib Turkiga wuxuu faro u ahaa horumarka iyo guulaha isbahaysiga NATO, sidoo kale wuxuu ahaa darbi weyn oo difaacu ka soo horjeeda Soofiyeedka isaga oo kaashanaya Iiraan iyo Israa'iil. sanadkii 1958 waxa booqasho taariikhi ah magaalada Istanbul ku tagay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Israa'iil isagoo intaasi kadib bilaabay ololo caasimadaha Yurub uu ku tagay si Turkiga albaabada loogu furo qaybna uu ka noqdo ku biiritaanka wadamada gaashaanbuurta NATO. inkasta oo sanadihii la soo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka Ankara iyo Washington iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka, Turkiga wuxuu had iyo jeer u ahaa xulafada istiraatiijiga ee reer galbeedka guud ahaan marka la eego gaar ahaan Mareykanka. waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyay xiriirka Turkiga iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka waxaa qaybta ugu muhiimsan qayb ka ahaa isku soo dhawaanshihii ay sameeyeen Turkiga iyo Ruushka tan iyo xagaagii sanadkii 2016, balse haddii reer galbeedka ay sii wadaan siyaasadda cadowtinimada ku dhisan ee ka dhanka dowladda Turkiga, Erdogan iyo dowladdiisa waxaa ku filan inay isaga baxaan kamid ahaanshaha wadamada gaashaanbuurta NATO, taasoo albaabada u furaysa in albaabada la isugu dhifto ilaa iyo 30 saldhig oo militari ah oo Mareykanka iyo wadamada gaashaanbuurta NATO ay ku leeyihiin gudaha dalka Turkiga. waxaa kaloo albaabada la isugu dhifan karaa saldhigga raadeerada, sidoo kalena waxaa yaala Turkiga ilaa 50 ka mid ah bambaanooyinka nuclearka. dagaalka Ukraine ka bilowday 24 Febraayo waxa uu sii holciyay xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo reer galbeedka kadib markii Erdogan uu diiday inuu u hoggaansamo cunaqabataynta Mareykanka iyo wadamada kale ee qaaradda Yurub ay ku soo rogeen dalka Ruushka, maadaama Turkiga 45% uu ku tiirsan yahay gaaska dabiiciga ee Ruushka. waxaana maamulka madaxweyne Erdogan uu sii waday xiriirka kala dhaxeeya xukuumadda Moscow, sidoo kalena maamulka Erdogan wuxuu dhanka kale marinadiisa hawada iyo biyaha uu ka xirtay maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka si uu isugu dheelitiro dhexdhexaadnimadiisa xaaladda taagan. mowqifka madaxweyne Erdogan ee ku aadan diidmada Sweden iyo sidoo kale dalka Finland ee ku biirista wadamada gaashaanbuurta NATO ayaa xukuumadda Ankara waxa uu hordhigay caqabadaha halis oo ku aadan xiriirka ay la leedahay dalka Mareykanka. madaxweyne Erdogan oo ku eedeynaya Sweden iyo Finland inay taageeraan ururo hubeysan oo dagaal kula jira, sidoo kale Erdogan wuxuu marar badan Mareykanka ku eedeeyay in uu siiyo dhammaan noocyada taageerada siyaasadda, dhaqaalaha iyo militarigaba cutubyada ilaalinta dadka Kurdiyiinta ee bariga Furaad oo ah urur ka dagaalama gudaha dalka Suuriya. Ankarana ay u aqoonsan tahay urur argagixiso, sidoo kalena waxay ka helaan taageero aad u weyn dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo dalal kale oo ka tirsan qaaradda Yurub. marka laga soo tago waxyaabahaasi oo Turkiga uu ka tabanaya Mareykanka iyo reer galbeedka, su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay muxuu madaxweyne Erdogan ugu dan leeyahay diidmada ku biirista Sweden iyo Finland oo kamid ah wadamada qaaradda Yurub ugu badan ee taageera ku biiritaanka Turkiga ee midowga Yurub, inkastoo Turkiga uu aaminsan yahay Finland inay qorshahaas ay ka soo horjeeday. falanqeeyaasha iyo diblomaasiyiinta Turkiga ayaa filaya in madaxweyne Erdogan uu mowqifkaasi kadib uu dib uga laabto arrintaas sida uu yeelay markii uu diidi waayay 2016 in Israa'iil xubin sharafeed ay ka noqoto wadamada gaashaanbuurta NATO kadib codsi ugu yimid xukuumadda Washington iyo ururada u ololeeya Yahuudda ee Mareykanka. General Turkar Erturki oo hore uga tirsanaa jiray ciidamada militariga ee dowladda Turkiga shaqadana ka fariista ayaa sheegay in waxa kaliya madaxweyne Erdogan uu rajeynaya ay tahay in dhammaan waxyaabaha uu tabanayo madaxweyne Joe Biden uu ku hordhigo casuumaad ka timaada Joe Biden kadibna kulan ka dhaca magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka si gabi ahaanba madaxweyne Erdogan waxyaabaha uu tabanayo uu kaga badasho Mareykanka ku biirista Sweden iyo Finland ee wadamada gaashaanbuurta NATO. marka laga hadlayo qodobada gorgortanka ee u dhaxeeya Erdogan iyo Washington, waxaan ku soo koobi karaynaa 5 qodob oo madaxweyne Erdogan uu doonayo inuu ku badasho ballaarinta NATO. 1. madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa in Washington ay ka laabato xayiraadii Turkiga laga saaray in laga iibiyo diyaaradaha casriga ee F-35.
in washington ay u ogolaato madaxweyne erdogan inuu rakibo ama uu kiciyo gantaalada S-400 ee ruushka uu ka soo iibsaday iyo sidoo kale in la kansalo cunaqabataynta uu ku soo rogay hubka maraykanka uu ka iibiyo dalka turkiga waa qodobka labaad